caafimaadkaaga. Barnaamijkeena xogta daasoon waxaynu ku soo qaadanaynaa sida aynu u sixi lahayn khaladaadkaasi ramadaantuna inoogu noqon lahayd mid aan raad xun inagaga tegin ee inoo hagaajisa caafimaadkeena guud. khaladka koowaad waa in suxuurta ka bacdi la cabo biyo badan iyadoo la moodayo ama loo haysto inay jidhka ka ilaalinayso haraadka xilliga maalinimada, laakiin biyo badan oo la cabo suxuurtu waxay keenaysaa inay keliyuhu aad u shaqeeyaan kadibna jidhka ka saaraan biyaha, taasoo kugu sababi karta haraad fara badan xilliga maalinimo. sidaa daraaddeed talada lagu soo jeedinayaa waa inaad xilliga suxuurta qaadato oo cunto khudradda biyoolayda ah sida shamaamka iyo tufaaxa, waxayna kaa caawinaysaa inay jidhka siiyaan biyaha uu u baahan yahay xilliga la sooman yahay. khaladka kale ee la galo waa biyaha qabow ee la cabayo xilliga afurka, kuwaasoo yarayn kara wareegga dhiigga islamarkaana dabcin kara xubnaha jidhka. sidaa darteed khubarada caafimaadku waxay kugula talinayaan inaad biyo aan qaboobayn cabtid xilliga afurka ama aad timirta ku cabtid caano yar. dhanka kalena waxaa caafimaad ahaan aan habboonayn in cuntooyinka kariska ah lagu degdego xilliga afurka, taasoo cillad ku keeni karta caloosha, xiidmayaasha iyo dheefshiidkaba. cuntada kale aan xilliga afurka wanaagsanayn waa xalwadda oo keeni karta inay kor u qaaddo kolestaroolka jidhka, waxaana bahda caafimaadku kugula talinayaan in haddii aadan ka maarmaynin xalwadda aad in yar ka cunto salaada cishaha ka bacdi. khudradda oo aad yaraysato bisha ramadaan ayaa iyana ah khalad kale oo aynu si joogto ah u galno, iyadoo khudraddu tahay mid ay ku dhan yihiin macdanta uu jidhku u baahan yahay bisha barakaysan ee ramadaanta, islamarkaana kaa ilaalinaysa in miisaanka jidhkaagu isdhimo bishaasi. cuntada ay milixdu ku badan tahay oo aad isticmaasho ayaa iyana laga dayriyey, maadaama milixdu jidhka ka yaraynayso biyaha islamarkaana aad haraad dareemi karto xilliga la sooman yahay.